habeenkii labaad ee ka socota magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubnaha ku matali doono Hirshabelle xubnaha maanta kursiga aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku tartamayay waxa ay kala ahaayeen Dr. Dufle iyo Raaga Xasan Cismaan sidoo kale Maxamed Nuur Tarsan wareegi koowaad waxa halkaasi ku heray Maxamed Nuur Tarsan waxaana isku soo heray xubnaha kala Dr. Dufle iyo Raaga Xasan ugu dambeyn waxa ku guuleystay senator Dr. Dufle oo ku qaaday ilaa iyo 67 cod Dr. Usman Mahmoud Dufle Dr. Usman Mahmoud Dufle Dr. Usman Mahmoud Dufle Raaga Xasan Usman Xuuti Dr. Usman Mahmoud Dufle waxaana goobtaasi dardaaran kaga jeediyay xubnihii musharaxiinta ahaa ee looga guuleystay kursiga aqalka sare ee ku matali doonaan dowlad goboleedka Hirshabelle waa doorasho oo lagu kala adkaadaa waana la ka adkaaday waxaana ogolnahay in la ka adkaado marka waa mahadsantihiin waxaan u rajaynayaa dowlad goboleedka Hirshabelle in ay noqoto mid guuleysata sida aad u sameyseen doorashada oo cadaalad ah oo muuqato qof walba oo arki karo waa qiyaasa inay tahay siyaasadda markii ugu horeysay amaada masraxa siyaasadda insha Allah waxaan jeclahay hadduu Ilaahay raad cid walba oo ku guuleysatay inay dalkan iyo dadkan iyo diinta wax u qabato insha Allah waan soo dhaweynaynaa professorka intii la tartayay assalaamu calaykum ugu dambeyn senator Dr. Dufle oo ah senatorka 40 sanad ee soo socota ku matali doono xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee dogaan doorashadiisana ay tahay Hirshabelle ayaa bogaadin iyo hambalyo ka jeediyay sidoo kale wuxuu uu sheegay balanqaadyo dhowr ah in uu ka qaban doono mashruucyo badan oo ka fulin doono magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle mid ugu dambeeyay dhaqaatiirta waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo jeeda ma ku abtirsato Hirshabelle waxa ballan aan ku soo ballanay in bishiiba 2 dhakhtar ama ay yimaadaan muxuu ahayd Jowhar labada ay tagaan meesha ilaado Beledweyne si loo baahitiro waxa waay wax badan aan dhihi lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii alla yiraahdo insha Allah taala inaan mahadcelin balaaran u jeediyo dhammaan baarlamaankeena iyo guddoonka iyo madaxweynaheena sharafta badan Yusuf Abubakar Ibrahim 5 Somali TV magaalada Jowhar